waa mid ka mid ah dhalinyarada majraha u haya fanka casriga ah muddo badan kuma jira fanka haddana waxa uu fankiisu isaga tallaabay dhammaan deegaanada Soomaalidu degto Farxaan Maxamed Yuusuf Farxaan Kuuriya waxa uu ku dhashay ku koray wax ku bartay Boorama isla Boorama ayaa uu fanka kaga soo biiray isagoo adeegsanaya awoodiisa shakhsiga iyo wax yar uu heli karayay marka ayuu haddana fanka si weyn uga soo dhex muuqday Farxaan Kuuriya fanaan la jaan qaaday fanka casriga halkee ayuu ka soo bilaabay hayaankiisa faneed haddana hayaankayga fanka maanta wax idinka taabto run ahaantii waxaan soo bilaabay waqti adag fanku iska adkaa fankayga waxaan ka bilaabay isla Boorama hibada fanku waxay ahayd hilow iyo hami ku duugan qulubtiisa ilaa yaraantii kadibna waa uu bilaabay laakiin sidee ayuu halkan ku soo gaaray waa kan fanaanku inooga waramaya jaranjarooyinkii uu soo maray kulli tole fanku uu iska hula badan yahay inkastoo ilaa yaraanteedan iska jeclaa anigu maad aragtay hobbiga ahayd fankayga kulli tole carqalado badan iyo dhibaatooyin fara badan iyo madaragtay marxalado adagba oo la soo maray hadda alxamdulillah inkastoo aan gaadhin halkii aan rabay si hadda waxaan ku socdaa waxaan rajaynayaa inaan gaadho halka aan rabo jaranjarooyinkan soo maray hadda wax idinka taabto kulli jaranjarooyinku aad bay u adkaayeen fanka Soomaalidu waa fanka ugu carqaladaha badan oo waxa ugu adag ugu dhibta badan uguna adag waxay Soomaali qabato adigoo waxba ahayn baba iyo dad xataa ka teedal sareeyo heer waxad gaari karaan ay yani ku cadaadiyaan waliba isku dayaan inay hoos adiga ku dhigaan adigoo waxba ahayn baba marka aad bilowga tahay wax kasta waa kugu kaliga ilaa fikta sare laga arkayo taasi waa uu soo maray Farxaan dabcan waan soo maray xilli leyniyad shabiyo laakiin uma joojin sababtoo ah hadaf iyo yool ban lahaa maxaad isticmaashay ugu gudubto xeeladii aad isticmaashay xeeladii aan isticmaalay waxa kamid ahaa samir calool adayg iyo waliba in madarkiis bushkareeyo oo is yiraahdo Farxaan waad ku gudbi kartaa marxaladan hadda aad ku sugan tahay waxana iman doontaa maalin ay adiga ku baahan doonaan dadkaas ilaa haddana waxaan isleeyahay maysan gaadhin maalintii laakiin maanta waxa uu yeeshay saaxiibo badan oo fankiisa danaynaya farxadiisu waa mid ka duwan maalmihii adkaa alxamdulillah waxay meel fiican maanta waan gaadhay waliba waxaan rajaynayaa madasha hadda aan ku suganahay uma malaynayo inaan wali meel taaganahay waxaan rajaynayaa halka aan taaganahay iyo meel ka sii sareysaba inaan gaadho sanado badan oo soo waday yoolkiisa faneed maanta waxa uu joogaa meel uu sawiran jiray markii uu fanka bilaabayay waxaan se weydiiyay halka uu socdo sanadada inagu soo fool leh halkaan u socdo waxay noqon kartaa meeshan anigu rabay meeshaasina kulli toole oo meel aniga calaamadaysan insha Allah markaan gaadhaanan ka hadli doonaa Farxaan Maxamed Yuusuf Farxaan Kuuriya waxa uu leeyahay in ka badan 20 heesood oo aan kala dhicin heestii ugu horeysay uu fanka ku soo galay waxay ahayd dibtiya diiftaygu tal siduu ii tumay jacayl tan iyo waagadugeyd miyanka talabsada sawkan igu taagsade waliba xadhigigu tigtigay tusaalaha aan noqde dadkuna ii tilmaamayaan ilayn dumartaa jirnimo hankooga tiigsadee ahaykii taag darnaaga halkay ugu talagaleen ahaykii taag darnaaga halkay ugu talagaleen sidoo kale heestii u qaraxday bilowgii fankiisaba waxay ahayd muusiya sayliciba uguntaday sinaan qarano guuliyo midnima sugan baan ku sixanay sanada badano allah sugay Somaliland calan sugan baan ku dogsanaynaay heestaan rajaynaya inay tahay tilig wada bartay fanka kasokow maxaa kale uu jecel yahay Farxaan hadii aanu fanaan noqon lahayn Farxaan waxa uu noqon lahaa adeega bulsho fanka marka laga yimaado kulli toole waxyaalo far badan oo jecelahay baa jira waxyaalahaas kulli toole ma soo koobi karayo mid iyo laba iyo saddex kuma soo koobi karo waa talabaade fanku aniga ahaan dhankayga shaqo kama aha oo yaani inaan ku shaqeysto ma soo gelin laakiin waa hobby bay tahay laakiin shaqooyin far badan oo aan jecelahay way jiraan inaan qabtana way jiraan waliba ay kow ka tahay yaani farsamo gacmeedyadu noocay doonaan baha ahaadaane adiyad hadii aanad fanaan noqon lahayn maxaa noqon lahayn fanaan hadii aanan noqon lahayn kulli toole waxyaalo badan ma noqon lahaa
bulshadan caawi bulshadan ma aragtay u qaban lahaa social worker ban noqon lahaa oo bulshadan ma aragtay u noqon lahaa mucaawiye sida masaakiinta oo kale sida ma aragtay dadka danyarta oo kale sida dadka dhibaataysan oo kale dadkaas isku day lahaa inaan caawiyo waa hadii aanan yani hadda ahaan lahayn fanaan farxaan imika waa fanaan taageerayaal badan ku leh Soomaalida dhexdeeda isla markaana codkiisa ku hantay kumanaan shacab ah hadoo markii uu yaraa maxay ahayd riyadiisu yaraantaadii maxaad jeclay yaraantaydii waxaan aad u jeclaa hadan yani yaraantayda dib aan ugu noqdo waxaan aad u jeclaa artist inay yani wax buufiyo noqoto qofkii aad jeclay waa maya sababtoo ah yani awood ma aanan saarin in aan noqdo artist laakiin waa qayb kamid ah artistiga baan hadda ku jiraayo waanigan u soo beedhin ka fanka waa kee fanaanka uu farxaan sida gaarka u jecel yahay fankiisa markaynu ka hadlayna fanaaniintii hore fanaaniintii hore fanaanka ka taageero kulli toole waxaan oran karaa Xasan Aadan Samatar inkastoo aan doontiisi lahayn laakiin haddana isaga inaan taageeran aad u filaya fanaaniintan dambe gaar ahaan gabdhaha haddii aan ku dhaaf fanaanadeed la heesi lahayd oo fankeeda jeceshahay waatuma fanaaniintan dambe haddaad igu oran lahayd yani yaad la heesi lahayd kulli toole waliba aad u jeclaysan lahaa ayaana heestii ugu dambeysay waxay ahayd haddii ay dhabka tahay kulli wada dhaqaaqiye bal intaana deeraan ma ku sii dhaweeyaa dusha timaha guudkee dib u dhaaftay adhaxdiyo dibna hadalka qadmada ilka dabar caskaga yaal dib markaan u fiirsado fanax yaraada hoosiyo idishay cabariyaga isla gaadha idacalada sinta labaada garaabiyo waxyaha dushooda halkani waa hoolka raysay Boorama waa goobta ugu shacbiyada badan ee dadku ku kulmaan xilliyada munaasabadaha farxaan waxa uu kamid yahay fanaaniinta halkani fankooda sida weyn looga xiiseeyo xilliyada munaasabadaha waaweyn farxaan waxa uu goobtani ku madadaaliyaa kumanaan shacab oo fankiisa la dhacsan